كويس عن كي قرد بس ده وليه waxaan ognaa gacan saddexaad isticmaalaysa xasan sheekh maxamuud oo dagaal ku qaadaya madaxda maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo galmudug kadib markii wasiiro uu ka safay dhammaan araggii ay hayeen lafta gareer iyo qoorqoor haddaba maxay tahay xilliga kani maxaase ku soo beegmay dagaalka xasan sheekh maxamuud oo ku qaadayo madaxda maamul goboleedyada qaarkood ma la is oran karaa waa ugaarsi siyaasadeed oo waxa uu ka urinaya raggan inay farmaajo taageero u yihiin xabiibil malaayiin aan ka dabageeyay daawade marka horese muuqaalkan like sars ina sheergare oo saaxiibadaada la wadaag halkani waa xaqiiq TV waa wehelka bulshada subscribe inoo saar si aad warbixinadeena maalin walba aad ula socoto mahadsanid madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isla markaasina ah gudoomiyaha kooxda Damul Jadiid oo xafiiska ku yimid halkudhiga Soomaali heshiisa dunidana heshiisa la ayaa hadda u muuqda mid ka weecday dhabahaasi wuxuuna si toos ah ula dagaalamaya madaxda galmudug iyo koonfur galbeed kadib markii wasiiro laga wada dhigay xubnihii hormuudka u ahaa mucaaradka labadaasi maamul Xasan Sheekh ayaa xabsiga ka sii daayay roob oo ay ishayeen lafta gareena kana dhigay wasiirka diinta iyo waqaafta Soomaaliya waxa kale xukuumadda ka soo dhex muuqday Abdulqaadir Cali Jaamac oo mar kale laga dhigay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya si uu la dagaalamo lafta gareen oo xildhibaanka beeshiisa u soo diiday dhanka galmudug waxa wasiiro loo magacaabay ragii hormuudka u ahaa mucaaradka qoorqoor gaar ahaan Axmed Macalin Fiqi iyo Abshir Buqaari madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa doonaya in xafiiska laga raacdeeyo lafta gareen iyo qoorqoor laguna bedelo xubno ka tirsan xisbigiisa Damul Jadiid oo dhibaato ba'an ka geystay wadanka Soomaaliya maadaama Damul Jadiid lagu xasuusto xasuuqi bacna ee ka dhici jiray gudaha wadanka Soomaaliya iyo sidoo kale xaaluf ba'an oo ay shacabka iyo sidoo kale gudaha dalka Soomaaliya ay markaasi ku sameeyeen arrintan dadka Soomaaliya isla markaana gorfeeya ayaa waxay markaasi ay sheegeen in haddii talaabadaasi Xasan Sheekh Maxamuud ay u suura gasho ay markaasi dhibaato xoog leh ay soo gaari karayso shacabka ku dhaqan deegaanada maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale kuwa galmudug maadaama ay yihiin nimankaasi niman inta badan maamulka iyo sidoo kale nidaamka aan ku fiicnayn Damul Jadiid Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu markaasi bilaabay in haatan uu mid u ugaarsado raggii markaasi u dhawaa Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ama saaxiibka la ahaa xabiibil malaayiin inkastoo madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu isagu markaasi ku sugan yahay magaalada Muqdisho ayaa haddana warar soo dhacaya waxay sheegayaan in raggii saaxiibada la ahaa ee siyaasadda markaasi ay ku wada jireen qaarkood ay u hayaameen ama ay u carareen dalka dibadiisa iyo wadamada jaarka ay nala sida Ethiopia iyo sidoo kale wadamo kale oo Afrika ka tirsan iyagoo ka baqdin qaba in taliska Damul Jadiid ay dhibaato xoog leh u geystaan ama ay ugaarsadaan oo ugaarsi siyaasadeed uu bilaabo Xasan Sheekh Maxamuud waxa qaylinaya kuwa tartami waayay oo tartan soo bandhigno tartami waayay waxa qaylinaya kuwa yiri anigu qabiil mar hadee aan kursi inta yahataysi ma ay qabiilka ku soo doono hatta kursi lama dooraya qabiilka u dooro reerkaagi waxa qaylinaya mid og inaan qabiilkiisa reerkiisa dooranay oo banaanka u samreen waxaas dad kaas wuxuu leeyahay xumaan qori daba qoladiisa wada oo galmudug lagu gubayaba waa ku waarabay waa kuwaas saxan u leeyahay kuwaas saxan kii qori daba sidaba waliba waxaan ognaa gacan saddexaad isticmaalaysa anigu oday Soomaaliyeed ma dadka meediyaha mariyad ali shakhsiyaadka tilmaama ma ahi dadka ceebaha shakhsiga sheegana ma ahi inaan ku kaftamo barnaamijka waa suurtagal laakiin Soomaali uma soo mariya markii mar raba inaan hoos ugu dago anaga reer galmudug aan leeyahay taaka kamida Soomaaliya ama dawlad goboleed Soomaaliya kamida waxaan la jecelnahay horumar waxaan la jecelnahay wanaag waxaan la jecelnahay galmudug maxaa yeelay galmudug inoo la mid yihiin sidaasoo kalena dadka Soomaaliyeed isuna jecel yihiin una fakarayaan laakiin way iska jiri kartaa hoggaan si qaldan iskaga maartay in wax la qaso iskaga fakari kara oo si qaldan wax ka yihiin cidna u qaban mayno waxaa qaylinaya kuwa tartami waayay oo tartan soo bandhigno tartami waayay waxa qaylinaya kuwa yiri anigu qabiil mar hadee aan kursi inta yahataysi ma ay qabiilka ku soo doono hatta kursi lama dooraya qabiilka u dooro reerkaagi waxa qaylinaya mid og inaan qabiilkiisa reerkiisa dooranay
oy banaanka uga samreen waxaas dad kaas wuxuu leeyahay xumaan qori daba qoladiisa wado oo galmudug lagu gubayaba waa ku waarabay waa kuwaasaa saxan u leeyahay kuwaasaa saxan kii qori daba sidaba weliba waxaan ognaa gacan saddexaadaa isticmaalaysa anugu oday soomaaliyada ah ma dadka meediyaha mariya dhali shaksiyaadka tilmaama ma ahi dadka ceebaha shaksigaa sheegana ma ahi inaan ku kaftamo banaanka waa suurtagal laakiin soomaali soo mariya maalki mar raba inaan hoos ugu dego anaga reer galmudug la yihahdaa taaka kamida soomaaliya ama dowlad goboleed soomaaliya kamida waxaan la jecelnahay horumar waxaan la jecelnahay wanaag waxaan la jecelnahay waxa aan la jecelnahay galmudug maxaa yeelay galmudug noola mid yihiin sidaasoo kalena dadka soomaaliya isuna jecel yihiin una fakerayaan lakin way iska jiri kartaa hoggaan si qaldan iskaga maaragtay in wax la qaso un iskaga fekeri karaa oo si qaldan wax ka yihiin cidna u qaban mayno waxaa qaylinaya kuwa tartami waayey oon tartan usoo bandhigno tartami waayey waxaa qaylinaya kuwa yidhi anigu qabiil ima rabee aad kursi intay xirta isii maya qabiilkaa kursi u doono xataa kursigii lama dooraya qabiilkaa u doono reerkaagii waxaa qaylinaya mid og inaan qabiilkiisi reerkiisi dooranayn oo ay banaanka uga samreen waxaas dad kaas wuxuu leeyahay xumaan qori daba qoladiisa wado oo galmudug lagu gubayaba waa ku waarabay waa kuwaasaa saxan u leeyahay kuwaasaa saxan kii qori daba sidaba weliba waxaan ognaa gacan saddexaadaa isticmaalaysa anugu oday soomaaliyada ah ma dadka meediyaha mariya dhali shaksiyaadka tilmaama ma ahi dadka ceebaha shaksigaa sheegana ma ahi inaan ku kaftamo banaanka waa suurtagal laakiin soomaali soo mariya maalki mar raba inaan hoos ugu dego anaga reer galmudug la yihahdaa taaka kamida soomaaliya ama dowlad goboleed soomaaliya kamida waxaan la jecelnahay horumar waxaan la jecelnahay wanaag waxaan la jecelnahay waxa aan la jecelnahay galmudug maxaa yeelay galmudug noola mid yihiin sidaasoo kalena dadka soomaaliya isuna jecel yihiin una fakerayaan lakin way iska jiri kartaa hoggaan si qaldan iskaga maaragtay in wax la qaso un iskaga fekeri karaa oo si qaldan wax ka yihiin cidna u qaban mayno waxaa qaylinaya kuwa tartami waayey oon tartan usoo bandhigno tartami waayey waxaa qaylinaya kuwa yidhi anigu qabiil ima rabee aad kursi intay xirta isii maya qabiilkaa kursi u doono xataa kursigii lama dooraya qabiilkaa u doono reerkaagii waxaa qaylinaya mid og inaan qabiilkiisi reerkiisi dooranayn oo ay banaanka uga samreen waxaas dad kaas wuxuu leeyahay xumaan qori daba qoladiisa wado oo galmudug lagu gubayaba waa ku waarabay waa kuwaasaa saxan u leeyahay kuwaasaa saxan kii qori daba sidaba weliba waxaan ognaa gacan saddexaadaa isticmaalaysa anugu oday soomaaliyada ah ma dadka meediyaha mariya dhali shaksiyaadka tilmaama ma ahi dadka ceebaha shaksigaa sheegana ma ahi inaan ku kaftamo banaanka waa suurtagal laakiin soomaali soo mariya maalki mar raba inaan hoos ugu dego anaga reer galmudug la yihahdaa taaka kamida soomaaliya